kusoo dhex dileen waa inta la hubo weeye weerarkaas waxaa la hubaa 7 nin baa hogaaminaysay oo kuwa xukunka dalka haysta ah waxa weeye arintani waa arin aan ku ekaa doonin Guure iyo Cabdullaahi Jaamac kaba weyn aan ku ekaa doonin weeye waa arin galaafad doonto dhamaan cid kasta oo mucaarada weeye nin kasta oo leeyahay xildhibaan weeye ama loolanka soo socda ayuu qayb ka qaadan doontaa way galaafad doontaa Xasan Garguurta waa seeftaasi waxa weeye markii hore waxa loogu talagalay in qabiilka leedahay hawiyaha lagu dhameeyo kadibna Soomaali lagu dhameeyo way kala horeeyaan qabiilada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed way kala horeeyaan mooy kalama marnaba nin ku badbaadaya ma jiro qorshaha loo dejiyay waxa weeye walaalayaal waxa weeye caawa habeen tacsiideed waxa weeye adal Cabdullaahi Jaamac waa isoo wacay xalayto markuu isoo wacay wuxuu ii sheegay waxa dhacay ee isaga dartiisa u dhacaya waxa kamid ahayd in iska banaadir raga askara oo ciidanka military ka tirsan oo madaxweynaha ku jufo hoose ah ay ka kaxaysteen wiil taksiilaha oo Cabdullaahi Jaamac Daruuya oo la yiraahdo Diiriye Maxamuud Ali Gadaar Diiriye Maxamuud Ali Gadaar wuxuu watay gaari taksi oo cad oo qariiban ah oo uu yahay taariikhdiisu AC 2621 ama a 26 inta la kiciyay ay wateen ay waxay geeyeen afgooye markay geeyeen isagoo waxa la soo helay meedkiisa 5 xabood ku dhifteen oo ay halka madax kaga soo dhifteen meel walba kaga dhifteen adeer waa soo wuxuu dhacday sidaas aan dhacday waxaan ka cabsi qabaa in wiilka loo afduubana aan daba galay in la rabay in wiilka loo dilay inaan tacsiis tago oo aan duugtiis tago oo leegu dilay rabay maxay kula tahay bal aan live ku sameey waxaan ku wada hatigin adeeg tacsida hatigin duugta xildhibaan Guure Facebookiisa ayaad akhri kartaan waxa uu ku soo qoray halka uu maray loolanka marka waxa weeye way cadahay inagu caawo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan tacsiir qaran ayaa u taalo waxa weeye ilmaha yar afka duubtay ee magaca shabaab sheegtahay ma ahan kuwa waxa geysanay ma ahanin arintu inta way ka mug weyn tahay shacabka Soomaaliyeed go'aanka iga leh aniga haddaan ku hadlayo laakiin qoyska xildhibaan Cabdullaahi Jaamac Sheekh Xuseen haddaan ku hadlayo qoyska ama reerkeena ku hadlayo waxa weeye sidii wax ay u socdaan ma noqon doonto waxa weeye taariikh ba arinta ka leenahay waxa weeye adduunku way soo martay masiibo adduunka way soo martay way dhacday rag badan oo ka Cabdullaahi ka qatarsanay in la dilay laakiin may dhicin in laga aamuso haday damajid ku fikirayaan Xasan Garguurte in hal iyo laba iyo saddex la dilo ay u istaagaysa halganka dalka aan badbaadis lagu jirna wallahi istaagaysa wallahi rag badan baa soo bixi doono inaguna war baa naga soo bixi doono haday maanta tahay iyo haday birita iyo haday 100 sano hadda dhiman tahayna arintaas meel bay fuuli doontaa waxa weeye kiiskaasna aniga waa daba joogan waa baaraya sawiradii ugu horeysay hordhaca ee ninka tooganayay xildhibaan Cabdullaahi Jaamac iyo xildhibaan Guure raga tooganayay waa soo helay sawiradii waana kuwaas halkaas waa arkartan waa kuwaas raga tooganayay waa sawiradaas waan isu dambeynaa waxa la mar labaad ee baa u naxariistay intii ummad Soomaaliyeed ee si xaq darro ah loo dilay waxa weeye ninka weerarka hogaaminayay weerarka ninka hogaaminayay halka laftiisa lagu dilay wuxuu la dhashay Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu la dhashay waxa la yiraahdaa Cabdixamiid Sheekh Cabdiqaadir ayaa ninka dagaalka hogaaminayay gaariga kaamirada ku xidhanta watay ilaalada hoteelka ayaa toogtay